gabdhihii Soomaaliyeed heer waxay marayaan ayagoo sidii qaawani oo sidii hooyadeed iyo abeed ay ku dhaleen oo yaani waxa dhar saarayn ay kuwa qaarkood soo galiyeen marka waa wax la yaab leh Soomaalida waxa lagu yaqaanay xishood gaar ahaan gabdhaha xataa hadii meel wax lagu cunaayo yaani in afkooda la arko oo ay raggu ay arkaan ma ayna jeclaan jirin laakiin hadda meesha la gaaray yaani ama waxyaabaha la sheegayo oo yaani awradii oo banaanka taala yaani la soo gelinayo oo yaani waxyaabaha noocaas oo kala ah oo waxyaabaha yaani la yaab kale oo runtii umadu yaani guud ahaan la wada yaaban tahay oo ay tahay arintaasi si wax wada jir ah in arintaasi wax geli badan looga sameeyo si akhlaaq xumada socota yaani loo joojiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تيك توك وآلة عصب واستعمال كذا وبدن يهي آلة الاستعمال أينا كم تهي لكن هبك أي صومالي هذا استعمالان أيارهمتي وحوي هب أن وناك سنين أيجو معلومات فائدة له أن سوق بين قاركود ولكن وحيابك هلا رقم كصومالي الدين تبعهم كفي عينين isugu gudbinaya marka ka aalad ahaan waa aaladaha kamid ah ayuu dambi male laakiin waxa lagu isticmaalo iyo habka loo isticmaalo ayuu dhibku iyo dambigu ka imaanaya hadba si loo isticmaalo ayay noqonaysaa hadii loo isticmaalo si wanaagsan oo fariimo ama caafimaadka bulshada ama dhulka dhismihiisa ama ummadda heshiisiinteeda xigmado loo isticmaalana waa aalad wanaagsan oo dadka wax lagu gaarsiin karo hadii loo isticmaalo isqaaqaawin iyo ismuumuujin iyo in la isku caayo iyo waxyaabo noocaas oo kalena waxun ayay noqonaysaa marka aaladaasi hadba sababka loo isticmaalo ayuu waxeedu noqonaya runtii waxyaabaha ugu yaabka badan anigu si gaar ah yaani igumana furo mana isticmaalo laakiin ama meelaha kale ee social media kamida sida Facebook oo kale ayaa lagu soo tuuraya ama dad ayaa kula soo wadaagayo oo يعني ساس أيها وحاسة لوسم يدهايا معلمها نوح إلى يا بدنا يعني أنت معلم سعاده الصور في هي ستي بره برشة أو يعني أنا ما أركن لكن ضد بعد وش كي يدهايا قبله الصومالي هر وحي مرعيان أيجو سيدي قاوني أو سيدي هو يدي أبيض يقول لنا يعني وحول نار سعرين أيكوا قاركود سوق جليين مركا وحلا يابله الصومالي ده وحلوية قاني حشود جارهان قبله حتى هذه مال وحلو عنايو يعني إن أفكار لا أركو أو أي رجو أي أركان ما ينجعلان جرين لكن هذا ماشي لجاري يعني أما وحيابها الشيء جايو أو يعني عورضي أو بنان كتعلا يعني لسوق جرينايو أو يعني وحيابها نوع عصو كلا أو وحيابها يعني لياب كله ورنتي ومضوا يعني جود أهم بلا وضياب بنتاي وأي تاي أرنتها سوى وذا جرأة إن أرنتها سوى يجري بدن لوجا سمايو سياق أخلاق حمادة صعوتا يعني لوجو جيو runtii culimadu daahira kasta ama muuqaal kasta oo bulshada ku soo kordha ama ku soo bata xilligaas uu taagan yahay inay ka hadlaan ayaa loo baahan yahay dadkan u sheegaan hadda xaaladan marka la tilmaamayo oo isqaaqaawinta ah in wacyi gelin badan culimada ay ka sameeyaan waa laga maarmaan diinteena islaamkuna gabdhaha waxay kula dardaarantay berigii islaamka ka hor oo jaahiliga la dhihi jiray sida ay yeeli jireen oo ahayd inay jirkooda iyo meelaha quruxdooda ay ku jirto ay muujiyaan banaanka soo dhigaan kaas ay uga digto Ilaahay wuxuu leeyahay wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ha ismu muujinina sida ay isu muujin jireen dadkii hore ee jaahiliga ahaa dadkaas hore ee jaahiliga ah ismuujintoodu waxay ku koobneed oo kaliya dadka markaa hor taagan ama hal qof ama laba qof ama saddex qof oo arkayaan laakiin hadda waxa la isticmaalay caalamku hal qol ayuu isku noqday wixii la soo geliyo yaani ama ismu muujinta laga muujiyo waxay wada gaaraysaa adduunka oo dhan ay gaaraysaa faafitaanka saas degdeg u ah iyo dadka tirada inta la ee arkaya dambigu intaas ayuu la ekaanaya islaamku waxa kale oo gabdhaheena uu ka reebay dhaqan hore oo jiri jiray oo ahaa lugaha ay berigii hore wax dahab iyo waxyaabo shanqaraya ayay ku xiran jireen gabdhihii hore quraanku markuu tarbiyeynay gabdhaheena wuxuu ku yiri walaa yadribna biarjulihinna liyu'lamu ma yukhfina min zinatihinna lugahooda aysan dhulka la dhicin si loo ogaado waxyaabaha ay qarinayaan ee quruxdooda bimacnaa dhulka intay yaani lugaha ku garaacaan ayaa shanqar shalab ah oo dahab inuu u xiran yahay oo kale ayaa qofkii agmara ayuu maqli jiray
taas ayaa loo diiday oo lisaas ayay marka maxaa u maleynaa shanqar kali ah oo meeshan gabar baa maraysa yani fidnayaysan ka dhicin wax loo joojiyay maxaa u maleynaa yani TikTokan iyo TikTokan la sameeynayo oo yani gabadha cawradeedii iyo habka ay yani u dhaqmaayaan oo runtii dhaqanka iyo akhlaaqdaba ka fog marka waa dambi aad u weyn oo yani dadka oo dhan wada gaaraya loona baahan yahay marka arintaas in la joojiyo ayadoo aadaabta islaamka la ilaalinayo طبعا آلات كasta oo la soo saaro dhibna way leedahay dheefna way leedahay waxaana la yiraahdaa qalabkan casriga ah social media ama warbaahinta guud ahaan waa silaaxun duu xadayn waa hub laba af leh oo bimacnaa xagga wanaagsan hadii loo isticmaalana dadkii oo dhan ayuu gaarsiinaya oo faa'iido way ka imaan kartaa oo mesela haday dad intay mesela mashruuc wanaagsan oo ummadda wax tar u leh yani intay soo duubaan ay dadka la soo wadaagaan ama mesela dad dhibaataysan intay soo duubaan ay dhahan dadkan dhibaatadaas ayaa haysata ama meel mesela abaar ay ka jirto abaartii intay soo duubaan ay dadkii dhahan dadka dhibaatadaas ayaa haysata hala garab istaago waa wax fiican laakiin haddii xagga kale loo isticmaalo yani waa waxun ayuu noqonayaa marka faa'iido wuu yeelan karaa waa markii xagga faa'iidada iyo waxa waxtar dadka u leh markii loo isticmaalo faa'iido wuu yeelan karaa waa hab casri ah oo aad u faafaaya oo dad in badan gaaraya yani adduunka oo dhan maanta laga wada fiirsan karo marka haddii khayr lagu faafiyo khayrkaas tirada badan ee faafay ayaa laga faa'iideysan karaa culimadu waxay ka qaadan karaan inay wacyigelin badan ay ka sameeyaan culimadu waxaa laga yaabaa barnaamijyadaasi inay aad uga warhayninoo yani dhalinyarada barnaamijyo dhalinyaro inay yihiin laakiin haddana dhibaatada jirta culimadu waxaa la rabaa maadaama ay indhihii bulshada ay yihiin inay ka warqabaan bulshaduna inay la wadaagaan culimada ay dhahaan muuqaalkaas ama dhibaatadaas ayaa ummadda haysatee ha laga hadlo waxa salaada jumcada yani isbuuci markuu dhammaadaba muslimiinta leeyahay ha loo khudbeeyo oo wax loo sheego waxay tahay hadba isbuucaasi wixii dhibaato ah oo ku soo kordhay bulshada inay culimadu kala hadlaan oo dhahaan waxaas oo xun ayaa jire hala joojiyo haddii wax wanaagsan la qabsadayna la dhiirigeliyo wanaagii oo la yiraahdo isbuucan wanaagaas ayaa inoo qabsoomay aan hor u wadno marka doorkaas ayaa uga furan culimada waalidiinta inay la xiriiraan waalidiintuna inay ilmahooda ka warqabaan oo yani ayna u ogolaanin in ay si xun u isticmaalaan qalabkaas yani wanaagna laga isticmaali karo xumaana lagu isticmaali karo طبعا dadkaasi ayaga garanaya oo sababaha ay u sameeyaan ama u marsanayaan ayaga ficil in weydiyo laakiin haddana yani maadaama isqurxinta iyo waxyaabaha ku saabsan ama tajmiilka yani gabdhaha si gaar ah u jecel yihiin oo mar hore la dhihi jiray aw man yunashu fi al-hilyati wa fi al-khisam ghayr mubin oo qurxinta ku barbaara waxyaabahan soo baxaya ee cusub yani haday u arkayaan in qurux ugu jirto isticmaalaan markay culimada weyna weydiiyaan oo waxyaabahan mesela la isku cadeeyo iyo waxa uu yahay waxaan u sheegnaa laba in loo kala qaado waxna waa wax yani qof intuu marsado midabkiisii caadiga ahaa oo dhalaal u kordhinayo oo qofkii yani aan waxba ka bedelaynin midna waa mid yani midabkiisii deeraayo oo yani maqaarkii ka bixinayo oo nooc kale ka dhigaya marka wixii nooc kale ka dhigayo oo maqaarkii fiiqaya ama baabi'inayo oo dhaqaatiirtuna caafimaad ahaan markii la weydiiyo ay ka digayaan kaas oo kale yani ma banaano laakiin midkan oo ah mesela ama saliid marsaday ama cream la marsaday oo qofka yani muuqaalkiisa uu yani uu ku qurxisanayo oo midabkiisii ah kaas dhib male marka noocyada dhaqmaaya oo inta gabdhuhu inta ismariyaan haddana ay iska dhaqaayaan biyahana raacaya kuwaas iyaga dhib male laakiin kuwa oo maqaarkooda waxyeelaynaya kaas ayaa dhib badan طبعا waxay ku xiran tahay bulshada iyo hadba sida ay arintaas ay u arkaan haday u arkaan in dib uu kaga imaanayo inay iska daayaan way dhici kartaa hadii laakiin ay u arkaan inuu caadi yahay oo san waxba ka dhibeynin uu sii jiri karaa uu sii socon karaa laakiin markii la isku soo wada duubo waxay un tahay yani ilaahi insaanka asaga abuuray qof walbana sida uu u eg yahay ilaahi baa ka dhigay waatu ilaahi leeyahay ilaahi waa allah idinku abuura raximka hooyadiin sawarakum fa ahsana suwarakum ilaahi wuu yiri laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim sida uu quruxda badan ayaan insaanka u abuurin waatu ilaahi leeyahay marka insaanku inuu insaan yahay ayuu ku qurux badan yahay oo ilaahi baa xayawaanaadka kale ka leexiyay oo ka duway oo joog ayuu leeyahay waa qofkaas taagan halka xooluhu ay ka foorraan oo ay gurguuranayaan marka yani quruxdaasi inuu qofku isku kalsoonaado oo qaybinta ilaahay uu raali ku noqdo waa arin aad iyo aad muhiim oo qanaacadaas
midda kalena in yani waxyaabo xalaal ah oo yani isqurxinta yani kamid ahna ayadan dhib male oo wala isticmaali karaa in allaha jamiil yuhibbu aljamaal qofku waxa la rabaa marka asoo diintiisana aan ka tagaynin dhaqankiisina haysta wax noloshiisa qurux iyo u kordhinaya caafimaadkiisana aan haleynaynin uu isticmaali karaa marka ummadeena guud ahaan waxaan leenahay ku ekaada aadaabta iyo dawaabida sharciga ee islaamka ah waxyaabaha akhlaaqda aan waafaqsanayn dhaqanka Soomaaliya aan waafaqsanayna rag iyo haweenba yani hal iska daayo aan abuurna ra'yi caam guud ah oo dadka xumaatada sameynaya ah yani looga yani dhahayo yani dhexdeena waxba sharaf kuma yeelanaysaan oo qof haduu wax xun sameyn lahaa xataa uu uga cabsado bulshadii ayaan ka aqbalaynina xumaatada iska daa wanaag haduu sameeyana dhiirigelin inuu helayo hadii loo abuuro wanaagana waa la sameynaya xumaatadana waa la joojinaya maxaan ku soo gabagabeynaa waxaan dhihi lahaa dadka xumaatada horta sameynaya qofku wuxuusan samaynin lagama samaynayo oo qofkii asaga toosan oo hagaagsan la iskama maagaayo Soomaalida waxay ku maamaahaa banaankiisa maradiisa geed ma qabsado afmaameegana waxaa la yiraahdaa koofur jinkaki ay adeegna kaati yani qof adiga kula mid ah wuxuu kugu caayay oo naanays ah aduu ka arkay ama u ekaatay hadii qofku uu wanaag u ka shaqeeyo oo fiicnaado oo iska ilaaliyo waxyaabahaasi yani lama maagaayo laakiin haduu qofku asoo isu muujiyo oo qofka yani laga helo yani suurooyin aan fiicnayn dadkii way sii dabagalayeen way sii faafinayaan marka qofka waxa sameeyaan horta inuu iska daayo dadka sii faafinayana inay joojiyaan sababtoo ah hadaad aragto qof xumaata xataa ay sameeyay in aad sii sheer garayso oo sheer tamana waa sii faafi inaad sameeyso ma banaana sababtoo ah waxani waa waxun lama faafiyo bulshada dhexdeedana sumcad xumada lagu ma faafiyo ilaahay wuxuu leeyahay in alladina yuhibbuna أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كوا جعل إن يفول حمض كل حفاظ ضدك مؤمنين تاع الدنيا آخرة عذاب أي ليهم إن ليس أسطراء أو قفل حماة الله وأركو أن السي فافنين أي دينتين أي قبتاء أو النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله قف مسلم عيب وكو أركي كقرية أو أسطراء أصلا إلهي بقى أسطراء مركا دتكون هلا أسطراء أو قف حماة كدعضو قف حماة السماينا إن هدي كدعضي حتى وبد كانوا أو وحي يسونكوسي سعونين النبي صلى الله عليه وسلم دتك يعني ومد إلهي وعفنا يا دنبية أي سمايان إلا كو لجهر مؤجي كو لجهر محايد يهمك الويدينة وحول وكوا إلهي أنتو أسطراء ودنبية أي جلان وصنكو فضيحين دتك أيام إسفضيحينايا marka qof intuu asagii wax xun iska duubo oo guri dhexdii uu ku sameeyo oo markaas cid la joogtay aysan jirin inuu hadana dadkii asagu yiraahdo kaala ila arka waa fadiixa aad weyn adduunkana ceeb ay ku tahay aakhirana dambiga la iska dhaafay ma aho ilaahay baa ku asturay adu maxaad isu ceebeynaysa banaanka isu dhigaysa ayaa u taala marka guud ahaan aadaabta islaamka hal ilaaliyo diinta islaamku cirdi ayay u taqaanaa ama sharaf ayay u taqaanaa gabdhaha iyo waxyaabaha ku saabsan in la caayo lama ogolo qofkii gabar mu'minad dhowrsan ku yiraahdo waad macsiyeysatay bayina iyo marxaati afar qof aan u haynin asaga la garaacaya oo lagu dhufanaya 80 karbash oo qadaf ayaa la yiraahdaa marka cirdigu waa sidaas marka gabdhaha waxa loo asturaayo ee aadaabta ilaaliyana waxay tahay waa cirdi qof walba uu jecel yahay in loo ilaaliyo marka qof kasta yani sida asaga uu jecel yahay in ehelkiisa loola dhaqmo asna dadka la loola dhaqmo walaasha xumaan uma ogolid walaal kalena ha u ogolaan xumaato hooyada uma ogolid hooyo kalena ha u ogolaanin marka qof walba ha iska soo qaado dadka oo dhan inay asaga dadkiisa oo kale ay wada yihiin wixii wanaagan hal isku dhiirigeliyo wixii xumaata ana gacanta hal iska qabto waa ma santeen salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh